Bismillahirrahmanirrahiim. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba oo joogtaan waxaad la socotaan waa Jaba Media. Kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay gudaha Soomaalida iyo caalamka. Qodobada aad ku maqli doontaan wararkeena maanta waxaa ka mid ah miinooyinkii ay dhigeen kooxda Al-Shabaab ayaa caqabad weyn ku noqday howlgalkii duulaanka Baydhabo. Warbixin ayaaynu idinkaga haynaa. Waxaad kaloo barnaamijkeena ku maqli doontaan 128 xildhibaan ayaa dowladda Turkiga ku eedeeyay diyaaradahoodii inay ka qayb qaadanayaan duulaanka lagu haya Baydhabo. Wararkii ugu dambeeyay dagaalka Daynuunay ayaad wararkeenii ku maqli doontaan. Waxaa kaloo sidoo kale qayb ka ah gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya xildhibaan Mursal ayaa ka digay sii socoshada xiisada colaadeed ee ka jirta dalka gaar ahaan duulaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Itoobiya dowladda federaalka Soomaaliya cabasho ka geysay UN-ta, AU-da iyo IGAD ayaa barnaamijka idinku soo gudbin doonaa. Waxaad kaloo aad maqli doontaan jabhadii Ciise ee Cashiica kusoo duushay iyo weliba saldhig laga qabsaday afhayeenka ciidamada Madaniga Gudubiirse ayaa inoo waramay. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaa barnaamijkeena kaga bogan doontaan. U diyaar garooba isagiyo faahfaahsan. Waxaynu ku bilaabaynaa daawadayaal wararkeena miinooyinkii ay dhigeen kooxda Al-Shabaab ayaa caqabad weyn ku noqday howlgalkii duulaanka Baydhabo. Ciidamadii hubantaha ee qorsheynayay inay weeraraan Baydhabo ayaa wajahaya dib u dhac iyo horumar la'aan ku timid howlgalkii ay ku doonayeen inay kula wareegaan magaalada. Sababta ugu weyn ayaa lagu sheegay miinooyin si ballaaran loogu aasay inta u dhaxaysa Moodo iyo Daynuunay, kuwaasi oo ilaa iyo hadda aan wax horumar laga gaarin soo saaristooda. Shalay ayaa khasaaro culus ka dhashay mid ka mid ah miinooyinkaas kadib markii uu ku qarxay gaari cabdibilaa oo ay saarnaayeen ciidanka. Qaraxaasi wuxuu sababay dhimashada qaar ka mid ah askartii saarneed gaariga, halka kuwo kalena ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan. Dhinacyadaasi ayaa keentay in qayb ka mid ah ciidamadu ay dib ugu laabtaan Buur-Hakaba, halka qaar kalena ay dib uga gurteen. Ilaa iyo hadda lama soo sheegayo wax dhaqdhaqaaqyo ciidan oo muuqda oo ka socda. Wararka ayaa sheegaya in Daynuunay ay si toos ah saaka ula wareegeen ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ee kuwa badbaadada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waad maqli doontaan. Waxaan ka horeysiin doonaa degdeg 128 xildhibaan ayaa si kulul ugu eedeeyay dowladda Turkiga inay diyaaradahoodii ay door muuqda ka leeyihiin dagaalka sokeeye ka socda dalka. Xildhibaanadan ayaa sheegay in arrintan ay tahay mid aan la aqbali karin, isla markaana ay ka dhalan karto cawaaqib siyaasadeed iyo mid amni ah. Waxay sidoo kale caddeeyeen in mustaqbalka lagula xisaabtami doono cid kasta oo ku lug yeelata fargelinta gudaha dalka. Ugu dambeyn waxay ugu baaqeen beesha caalamka inay si dhow ula socon doonaan. Xaaladda isla markaana looga hortago wax kasta oo hurin kara colaadda. Wararkii ugu dambeeyay xaaladda Koonfur Galbeed duulaanka Baydhabo lagu soo qaaday dagaal culus oo qaatay muddo ka badan 2 saacadood ayaa maanta ku dhex maray ciidanka xoogga dalka iyo kuwa la magac baxay badbaadada Koonfur Galbeed iyo ururka Al-Shabaab deegaanka Daynuunay oo qiyaastii 18 kiiloomitir u jira magaalada Baydhabo kula taala inta u dhaxaysa Baydhabo iyo Buur-Hakaba. Faafahinta dagaalka ciidanka dowladda ayaa la kulmay jidgooyo qorsheysan, waxaana lagu weeraray qaraxyo iyo miinooyin dhulka lagu aasay. Ciidanka dowladda federaalka ayaa sameeyay iska caabin adag, iyagoo kaalmo ka helay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn droneska oo fuliyay duqeymo loola beegsaday fariisamaha kooxda weerarka soo qaaday. Waxaa jira khasaare nafeed iyo dhaawacyo soo gaaray ciidanka xoogga, iyadoo 2 baabuur iyo kuwa dagaalka ay ka baxeen gacantoodii sida ay noo xaqiijiyeen sarkaal xoogaal ah oo howlgalka ku sugan. Waxaana goordhow Muqdisho loo daadguraynayaa dhaawacyada. Xaaladda fariisamaha iyo xogta iskhilaafsan. Inkastoo dagaalku istaagay, haddana waxaa jira warar iskhilaafsan oo sababay cidda gacanta ku haysa deegaanka Daynuunay. Wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda federaalka waxay sheegtay in ciidanku si buuxda ula wareegeen deegaanka muhiimka ee Daynuunay. Hase ahaatee, saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka waxay sheegeen inaysan jirin wax horumar oo ay sameeyeen ciidanku. Dhanka kale, wararka ciidanka dhexdiisa ka soo baxaya ayaa mid iskhilaafsan, waxayna sheegaysaa in ciidanku ku sugan yihiin halkii uu dagaalku ku qabsaday, iyadoo dhanka kale ay jiraan warar tilmaamaya inay dib uga gurteen fariisamihii ay xalay ka baxeen. Ilaa iyo hadda ma jirto xog madax bannaan oo xaqiijinaysa khasaaraha rasmiga marka laga reebo wararka baahisay wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya. Waxaa jira jahwareer dhanka xogta oo ka imaanaya saraakiisha ciidanka dhexdooda, kaas oo ku aadan halka ay hadda ku sugan yihiin cutubyada ciidanka. Dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya
ayaa soo saartay war-saxaafadeed ay ku dhaliilayso duulaanka lagu soo qaaday. Afhayeenka dowladda Ugaas Xasan Cabdi Maxamed ayaa wuxuu dhahay ayaa bartiisa Facebook ku daawacay, waxaan aad uga xumahay dhibaatada gaartay wiilasha Soomaaliyeed ee ay aanbahanba lagu aruurinayay degmada Buur-Hakaba. Waxaa xaqiiqo ah uu dhahay in dhibaatooyin waaweyn gaareen. Waxaa sabab u ah khilaaf dhexdooda sababay kala aragti duwanaansho la xiriirta kala dagaalka iyo gelimayno. Dhibaatada gaartay wiilashaas walaalaha ee lasoo qalday waxaa mas-uulka u dhahay Xasan Sheikh oo u bareeray duulaanka gardarada ee lagu soo qaaday dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya. Sidoo kale gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya Xildhibaan Mursal ayaa ka digay sii socoshada xiisadda colaadeed ee ka jirta Koonfur Galbeed, taas oo uu sheegay inay sababtay in ku dhowaad 50 qof ay barkaceen. Wuxuu ku eedeeyay dowladda federaaliga ciidamo militari u adeegsanayso arrimo siyaasadeed xilli dadka deegaanadaasi ay la daalaa-dhacayaan abaaro, gaajo iyo adeegyo xadidan. Waxa uu ugu baaqay madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud inuu dib ugu laabto go'aanadan oo waxyeello u ah shacabka, isla markaana si degdeg ah looga soo saaro ciidamada federaalka ee duulaanka kuwa Baydhabo si looga hortago in xaaladdu ka sii darto. Ugu dambeyn, wuxuu carabka ku eedeeyay in khilaafaadka taagan lagu xaliyo wadahadal iyo hab sharci ah si loo ilaaliyo nabadda iyo xuquuqda dadka Koonfur Galbeed. Itoobiya oo dowladda federaalka Soomaaliya cabasho u geysay UN-ta, AU-da iyo weliba IGAD. Warbixin dowladda Itoobiya ayaa warqad cabasho ah la wadaagtay xafiisyada UN-ta, AU-da iyo IGAD tabashadaas oo ku aadan in weerar lagu soo qaaday magaalada Baydhabo ay u joogaan nabad ilaali. Warqadan oo afeefad ahaan u muuqata ayaa sheegaysa in ciidamada Itoobiya u joogo Baydhabo oo ay xil ka saaran tahay amniga magaalada oo aysan marnaba indhaha ka fiirsan karin duulaanka dhana amniga iyo xasiloonida magaalada Baydhabo. Waxay u muuqataa in dowladda Itoobiya ay amar buuxda ku siiyeen ciidamadooda inay difaacaan dowladda Koonfur Galbeed. Warkan ayaa mid rajo weyn gelinaya dowladda Koonfur Galbeed oo shalay mar labaad madaxweyne u dooratay Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen. Afhayeenka dowladda Koonfur Galbeed Ugaas Xasan Cabdi Maxamed ayaa dowladda Turkiga wuxuu ku eedeeyay in diyaaradaheedii loo adeegsanayaa duulaanka ka dhanka ah Koonfur Galbeed. Afhayeenka dowladda Koonfur Galbeed ayaa uga digay ciidamada Turkiga inay iska ilaaliyaan fargelin ay ku yeeshaan duulaanka lagu soo qaaday Koonfur Galbeed. Waxay ugu baaqeen in arrintan wixii cawaaqib ah ka dhasha ay iyadu saameyn ku yeelan doonto. Weli wararkii waa Jaba Media ayaa daawanaysaan. Jabadihii Ciise Ashiya kusoo duulay oo la baxsanayo saldhig laga qabsaday. Afhayeenka ciidamada madaniga Gudubiirse Mawlid Daahir Alaale ayaa fariidiray ciidamada madaniga Gudubiirse oo la wareegay saldhig muhiim ah iyo jabhadda Ciise oo laga saaray Ashiya. Warka laga soo gaaray deegaanka Ashiya iyo nawaaxigeeda ayaa sheegay in halkaasi uu ka qarxay dagaal hoogan oo u dhexeeya ciidamada madaniga ee Gudubiirse iyo jabhadda Ciise ee halkaasi ka soo duushay, iyadoo laga soo waramayo in lagu jabiyay maleeshiyaadkii duulaanka. Afhayeenka ciidamada madaniga ee Gudubiirse Mawlid Daahir Alaale oo la hadlay warbaahinta ayaa xaqiijiyay in ciidamadoodii ay si buuxda ula wareegeen mid ka mid ah saldhigyadii ugu muhiimsanaa ay fariisinka ku laayeen jabhaddii Ciise. Waxa uu sheegay in ciidanka hadda lagu raad joogo firxadkii jabhadda ee laga saaray deegaanada lagu soo duulay. Afhayeenka ayaa fariin adag u diray cid kasta oo damac kaga jira dhulka iyo deegaanada Gudubiirse, isagoo sheegay maanta ma jirto cid dhulkayga nagu soo duuli karto oo aan iska celin karin. Saldhiggii aan la wareegnay waa bilow, waxaana u sheegaynaa kuwa Ashiya kusoo duulay inay dib u gurtaan ka hor intaan gacanta lagu dhigin. Waa sida uu yiri. Xaaladda ayaa weli ah mid kacsan, iyadoo ciidamada madaniga ay sheegeen inay sii wadayaan howlgallada ay ku xaqiijinayaan amniga xuduudaha iyo deegaanada ay degaan beelaha Gudubiirse ee deegaanada Somaliland. Guud ahaan daawadayaal, waxaa halkan kusoo gebgabeynaya wararkii aad kala socoteen maanta waa Jaba Media. Tayo kulanti dambe oo xiiso leh akhyaaray nabadgelyo.